Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay ayaa mahad oo dhammi u sugnaatay allihii ina soo gaarsiiyey tobankii dambe ee bisha Ramadaan, isagaana weydiisanaynaa inuu khayr inoogu dhammeeyo. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago baraarujin kooban, taasoo aan nafteeda iyo naftiinaba ku baraarujinayo, iyadoo aan ogahay intiina daawan doonta in aan aniga idinku cilmi yarahay. qof kastane ku baraarugsan yahay, laakiin waa xasuusin. Ramadaan way dhalatay iyadoo aad moodid daqiiqado, waxay ku sii siqaysaa inay ina dhaafto oo waa sidii Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda suuratul baqara ku sheegay, waa ayaamo tirsan, ayaaman macduudaad. waxaase mudan maalmahaas yar ee haray inaan ka faa'iidaysano oo nafaheena weydiino intii ina dhaaftay khayr mala nimi oo ma ka faa'iidaysanay. tobanka dambe ee bisha Ramadaan waxaa ku jirta habeen aad u fadli badan ee habeenka Laylatul Qadriga. waa habeen qaaliya, waa habeen ay malaa'igta soo degto ee dhulka kaga badan tahay quruuraxa. Allah subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku yidhi: Bismillahirrahmanirrahiim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ayuu ugu dadaali jiray cibaadada, waliba si aan u dadaalin waqtiyada kale. waxaa ku sugan saxiixu Muslim xadiiska Caaisha laga soo warinayo radiyallahu anha, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu ku dadaali jiray cibaadada tobanka dambe si aan u dadaali jirin waqtiyada kale. waxaa ku sugan Bukhari iyo Muslim xadiisyo tilmaamaya siduu nabiga sallallahu alayhi wasallam u cibaadaysan jiray tobanka dambe ee bisha Ramadaan. waxaana ka mid ah marka ay gaadho tobanka dambe ee bisha Ramadaan, nabiga sallallahu alayhi wasallam guntiga ayuu adkaysan jiray, habeenkana wuu nooleyn jiray, ehelkiisana wuu toosin jiray. sidoo kale xadiis laga soo warinaya Caaisha radiyallahu anha, nabiga sallallahu alayhi wasallam 20 ugu horeeyay ee bisha Ramadaan mar wuu seexan jiray, marna wuu cibaadaysan jiray, laakiin tobanka dambe ee bisha Ramadaan wuu soo jeedi jiray, guntiga ayuuna u adkaysan jiray. axaadiistani waxay ina tusayaan fadliga faraha badan ee leedahay tobanka dambe ee bisha Ramadaan iyo sidii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ugu dadaali jiray. inagana ayna la gudboon tahay in aynu ku dayano rasuulka sallallahu alayhi wasallam. rasuulka sallallahu alayhi wasallam cibaadooyinka uu sameyn jiray waxaa ka mid ahaa oo tobanka dambe aad ugu dadaali jiray salaada, quraanka akhriskiisa, dikriga Ilaahay, sadaqada bixinteeda iyo wixii la mid ah. sidoo kale waa inaan ku dayanaa nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aan sameynaa wuxuu ku dadaali jiray tobanka dambe, in salaadaha la badiyo sida taraawiixda iyo sunnooyinka, midda waajibka ahna la ilaaliyo waqtigeeda. haddii aad sameyn jirtay in aad habeen tukatid taraawiixda, habeenna aadan tukan, fadlan tobankan dambe joogtay oo ka faa'iideyso. sidoo kale in la sii laabo quraan akhrinta si ka duwan 20kii hore ee ka soo gudubnay, in aad juhdi iyo dadaal badan ku bixisid si aad alle u xusu lahayd oo aad dikriga badiso. sadaqada bixinteeda iyadana aad sii laabto, sababtoo ah bishaan aad bay ugu ajir badan tahay bilaha kale sadaqada lala baxo. iyadoo ay saas tahay, tobankan dambena kuma sii jirto oo way ka sii ajir badan tahay 20kii hore wixii lala baxay. habeenka Laylatul Qadri fadligiisa waxaa ka mid ah: 1. quraanka ayuu Ilaahay soo dejiyey. 2. waa habeen ka khayr badan 1000 habeen ama 1000 bilood, taasoo u dhiganta 83 sano iyo wax la jira. 3. waa habeen barakaysan. 4. malaa'igta ayaa habeenkaas soo degaysa. 5. waa habeen nabadgelyo. 6. waa habeen wax walba oo suuban la xugminayo. 7. Ilaahay ayaa u dambi dhaafaa habeenka kii haleela oo cibaadaysta. waxaa wax aad loogu xumaada ah, khasaare iyo murugana leh, in aad arkayso in badan oo ka mid ah muslimiinta oo waqtiyadan qiimaha badan leh uu kaga lumayo waxyaabo aan waxba u anficayn, iyagoo habeen oo dhan ku soo jeedaya dheedheel iyo laqwi. gabagabadii, waxaa nafteeda iyo tiina kula dardaarmayaa inaan ku dadaalno cibaadada noocyadeeda kala duwan si aan u haleelno habeenkaas khayrka badan, oo Ilaahay aan u kaalmaysano kana barino inaan gaarno habeenkaas insha Allah.